war ilaahay iyo warankiisu ka hadalkiisu noloshoo dhan baa ku fududaatay carabkiina buu nebigu yidhi yuu ka zuulin ha ku qoyanaado ratb min dikri illah ha ku ahaado ilaahay xuskiisa alxaafid cabdillaahi bnu cawf xufaadii xadiidka nin ka mid ah waa sheekhii shucba iyo cabdillaahi bnu mubaarak iyo umaraa ilmuminiin fi lxadiid waa sheekhoodii ayaa wuxuu odhan jiray dikru nnaasi daa'un wa dikru llahi dawaa'un buu odhan jiray bini aadamka sheegiisuna waa xanuun ilaahay sheegiisuna waa caafimaad buu leeyahy ilaahay ka warankiisu dadku 24 saacadood bini aadam bay ka warramayaan marka halkan ka baxdaan maxaa ka warantaan reer hebel baa sidan yidhi iyo madaxweynaha caynkan yidhi iyo qoladii mucaaradkaa kan tidhi iyo kuwa kale wax doonayo saan yidhi reer nebi aadam baa sheegtaan soo maaha waa dikru nnaas halkaad rabbigaa xusi lahayd ayaa waxaad xus ka dhigatay maxay bini aadamkaad xus ka dhigatay bini aadamuun inaad ka warranto 24 saacadood hebel baa caynka yidhi hebel baa halkan ka baxay hebel baa cayn ka baxay dabeetana xada xaafidkaasi weynaa culamaa ilxadiid ka tirsan baa wuxuu leeyahay dikru nnaasi daa'un aadanaha sheegoodu buu leeyahy waa bukaan waa xan iyo cay iyo dhib iyo rabshad unbaa laga qaadaa bini aadamka ka warankiisa amaa dikru llaahi dee waxaa lagu tagaa manaasil alculya janno iyo meel koraysa ayaa lagu helaa ilaahay subxaana wa tacaala sheegiisa saa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ina barayaa salaadu dhammaanteedba inay tahay ilaahay xuskii waxaa layna barayaa salaada markaynu ka baxnana inaynu xuskaas u wadno ilaahay wuxuu leeyahay cibaadaadka caamkee rabbi lagu xuso faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra carabtii hore intay xajto ayaa xajka markay dhammayseen suuqiyay bay isugu iman jireen faanka la ysugu baxo markaa reer waliba gabayaagooda iyo aftahankoodu ka heli jiray dabeetana khudbado iyo gabayaa la isu dhigan jiray ilaahay wuxuu yidhi waryaadheen carafo markaa ka timaadaan markaa manaasigtiina dhammaysataan baa ilaahay yidhi war ilaahay u xusa ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikra sida reeraha u xustaan innaguna dee reerahaynu xusnaa jaahiliyadii carbeed waxba kama sokayno reer hebel baa caynka yidhi reerka iyagaa weligayaba reeraha layn jiray soo intaa umaaha intaynu sheegnaa reerka iyagaa magaalada leh reerka iyagaa dunida leh reerka iyagaa xoolaha leh reerka iyagaa caynkana reer waliba intaasunbuu sheegaa ilaahina wuxuu ina leeyahy war waxaa sheegtaan sidan laydinku itixaamay reeraha u wadaan u sheega rabbigiinu xusa subxaanahu wa tacaala faidaa cafadtum min carafaati carafo maxaa la qabtaa marka la joogo soomaalin dhan oo ilaahay la baryaya maaha ilaahay wuxuu yidhi faidaa afadtum min carafa carafa markaa ka dareertaanna fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam ha ilaabina ilaahay xuskiya halkii ka wada wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qabli ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya ilaahay xuskiisa inaynan marnaba ilaabin dagaalka markaa ku jirtaan xabaddu ay dhacayso salaatuka baa lagu yidhi waa ilaahay qaabka loo xusee waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa faltaqum طaa'ifa markaasaa la yidhi haddana salaada noocaasa markaad dhammaysana maxaad samayn xuska ilaahay ha ilaabin baa lagu yidhi faidaa qadaytum الصalaata fadkuru llaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubikum faida اطma'nantum faaqimu الصalaata ina الصalaata kaanat على المؤمنين كتابا موقوتا وآية ku xigta salaadii dagaalka marka laga waramay baa la yidhi war dagaalka salaadiisa xataa markaad dhamayso adoo ku jira ilaahay xuskiisa hay bale ilaahay wuxuu ina barayaa waxa salaada loo tukanayaaba inay tahay in xuskaa un la wado inanii ana allahu laa ilaaha illaa ana faacbudnii waaqimi الصalaata lidikrii baa ilahay yidhi waaqimi الصalaata lidikri bale nebi haaruun wuxuu sheeganayaaba nebi muuse kay nadkuraka kaiira kay nusabixaka kaiira wanadkuraka ilaahay wuxuu u sheeganayaa ilaahayow walaalkay haaruuna igu kaalmee oo isna nebi iga dhig waayo si aanu xoog kuugu tasbiixsano xoog kuugu xusno markuu baxayana waxaa lagu yidhi maxay ولا تنيا في ذكري أيها الأحبة الحمد لله رب العالمين الحمد بينها وأوسع الصفات وأعم المدائح
لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هي حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله وورك ابن القيم أيها الأحبة آيات كان سو أخريو دمي waxay sheegayaan mas'alo ku saabsiisan ilaahay subxaanaه wa tacaala in la xuso waa haddaba intee in leeg buu xuskaasi inaga ka yahay nolosheen iyo barnaamijkeena nololeed intee in leeg buu ka xisaabsan yahay in barnaamijka dowladdeena intuu ku jiraa barnaamijkaaga gaarkaa intuu ku jiraa barnaamijkeena tujaarta intuu ku jiraa kuwa bulsheed kuwa jaamacadeed intee bay nolosheenna ku jirtaa ilaahay xuskiisu iyo ilaahay in la weyneeyo ila faatixadu waxay inoo sheegtay qaybteedii koowaad waa intaa maxaa ku xiga marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa ku xiga mas'alo aad qiraysoo ah ilaahayow keligaa baanu ku caabudaynaa iyaaka nacbud nacbuduka ayuu ahaan lahaa nacbuduka haddii la yidhaha waxa weyaan adigaanu ka caabudaynaa lakin dee ciddii kale aanu doonana waa caabudaynaa ama iyaaka nacbud waxa weeyaan keligaa baanu ku caabudaynaa keligaa baanu ku caabudaynaa waa maxay waa keligaa baanu kaa dambaynaynaa nolosha adaanu kaa qaadanaynaa ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان شيطان كما ينو أفور سننا مايا وهالراعنا والشيطان عابدين با إلهي سبحانه وتعالى تعيس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخطيفة نبي حولي وحا هوغي كأضون كواه درهم كي دينار قور ما ضون انتي دولار شقي مركا دون نولات تتكبر بعضك يسوابو مركو بريو xoolo xooji buu ordaya maantoo dhan uu dhidisay gabalku markuu dhacana iyagu xisaabinaya habeenkiina riyadiisu waa iyaga ila bini aadamku waxa ku bato mu ku riyoodaaya idan noloshiisii cimrigaaga ma inaad daraahim ururisaabad u noosha barrina markaasaad ka tegaysaa markay gaboobaana sii dhimanayaana way calaacalaan 60 sanaan ururinaya kuwana waa ku cayaaraya 60 baan dadka ka dhowraya kuwana waa baabi'inaya marka hore ahayd inaad 60 cimrigaaga ka mid ah waxaa ku khasaaraynin 60 cimrigaaga ka mid ah inaad xagga rabbi u jeedaa bay ahayd subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala waxa ay tidhaahdaan iyaaka nacbud ilaahu keligaa baanu ku caabudaynaa cibaado dhammaanteed keligaa baanu kuula imanaynaa wa iyaaka nastaciin kaalmo dhammaanteedna ilaahu adaanu ku weydiisanaynaa baahida iyadoo aduun bay kugu xidhantay laakiin markaynu ka baxna maxaynu idhahnaa donoriska iyo dadka wax bixiya hana soo gaadhaan soo maaha markaad ilaahay hortaagantayna waxaad leeyahay ilaahu adigun baan kaalmada kaa dalbaya yani waa nolol wada mutanaaqidaynu ku noolnay nolol is wada burinaysa intaad ilaahay is hortaagto ma ilaahay baa been loo sheegaa iyaak baad soo horraysiinaysaa iyaaka nacbud ilaahu hadaanu kaalmana kaa dalbaynaa kuna caabudaynaa ma yeelaa run ma tahay mise maaha ilaahay wuxuu ina yidhaahdaa markaynu intaan idhaahdo haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdi maa sa'al taasi waa wixii aniga iyo addoonkayga wixii noo dhexeeyey weeyaan iyaaka nacbud iyaaka nastaciin walicabdi maa sa'al baa ilaahay leeyahy wixii uu weydiistana waan siinayaa maxaa layna baray marka aan soo koobno maxaa layna baray inaynu ilaahay weydiisano ilaahay wuxuu ina barayaa su-aasha ugu weyn nolosheenna aynu ugu baahi badannay su-aashaynu ugu baahi badannay waa maxay yaa garanaya su-aasha ugu baahi badan su-aasha aadanuhu ugu baahi badan yahay waxa weeyaan inuu ariiqa saxa ah helo jidka quman inuu helo aadanuhu taariikhdiisa nololeed ee uu soo jiro o dhan waddo saxu daydeeyey
كله ماها كله ماها كله ماها في كل أحواله هدي فلاسفتي هدي دقالي هنتي هدي سياستي هدي واحد تجربة دا آدنا هردن تاريخ دا آدنا هدا دخرده ورمحاي نور رمبر هذا عدد اللي وجري دبتنا مالين بميل بالستوسيني ماشي أمريكا مدلل دجنا دا بالله يرضى ماها هلا جور دبتنا وحا تاريخ دا بني آدم كادر أسيسه dhaqaale marka daraasaynaysoo taariikhda iqtisaadka caalamiga soo dee waxa rag baa ka fakiray oo raadinayeen bal meel nolosha ku quman taariikhda siyaasiga ee dunida marka raadiso inta soo nidaam baa dunidu soo martay kulba mid baa la lahaa balkan ku daya 70 sanadood baa shuuciyad lagu waday markaas la yidhi maaha inaga duwa tan hadda la hayaana ma ahayna waliga ha isugu sheekayna dimuqraadiyad baa lagu liibaanaya ma ahay waa ku daydii un baa wali aadan u wada إلهي وحينا تلمام يا وح قول القول بان يا وحي لكن ما كقاعد النبي بيسوي دين تله سيدا وجد من رب سبحانه وتعالى وحينا بريا أعظم سؤال إن ويدي سنة هذا بمرك إنه يسجه هرتاجني سؤال شو وين ابن آدم كوبا هي إنه ويدي سنة إنه ويدي سنة ومحيا الهداية هذا بوحي تلا هذا مبايله هي لي اهدنا الصراط المستقيم إله واحد نوها نونسا اهدنا كلمة الهداية لما معنى إلى هذا في اللغة مروح على هذا والدلالة أو الدلالة وعضين يبيان يتوسن موشن مرنا وحلا إلى هواء إعانة والله بدأ القرآن كبير هي النبي مدنا وديدي مدنا ويرولي إنك لا تهدي ما أنا حببت يعني وما قرقاري كرتيد ويا أنا وقلبي سيما كما قالين كرتيد وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم نوام حي وهذا عضينا يساه وإنك لا تهدي مرنا إنك لا تهدي بالي مرنا وإنك لا تهدي بالي يعني ولا بدأ معناه هداية ولا يضحي هل كان مركا إلهي إلا بدأ ويدي سنينه إلهي إنه طريقة إنه عديه إنه هنوني يبا إنه قرقاره إله واحد نوع عديسان إنه هنوني سا جيت كتوصل الصراط مركو هورا لا يرادا الصراط كطريق الواضح با لا يرادا جيدك بلارن حقافك سوماليdu wadadu de warigi hore wuxuu taqaanay wada yar oo luuq oo ama geel ka arooro ama xoolo ka arooro gaalka cagaf iyo wuxuu la yimi wada weyn oo gawaadhidu marto la baneeyo deetana xagaaf bay u bixiyeen tii gaalku keenay taa balaaran ee waasica ayaa la yiraahdaa siraat fi lugha waa طريق الواضح balaaran haddana waxa la yidhi waa mustaqiim toosanaantu waa maxay laba shay waddada ugu dhowa loo maraa waa ta tooska ah soo maaha halkan haddaad ka baxdo xaggaa intaad u kacdo soo wareegto halkaa haddana waad ka soo iman kartaa soo maaha meesha doontaad ka soo wareegi kartaa akhirkaad halkan iman kartaa ama siraat almustaqiim waa jidka ugu kooban ee markiiba aad ku gaadhayso meeshii aad rabtay inaad tagto ilaahay wuxuu ina yidhi waxay weydiisataan jid laba sifo leh marka hore mid cidhiidhiya maaha waa mid ballaaran oo khalqiga ilaahayba qaadaya hadday raacaan waa xagaaf baa la yidhi marka hore waa siraat marka labaadna waa mustaqiim waa mid toosan idan fudayd dhammaantii buu leeyahay markaasaynu haddana odhanaynaa maya horta diinta halkan inoo dhigo iyadu ina wadi kari mayse dunidaaba inala yaabaysa ilaa haddaynu kitaab iyo qur'aan iyo qaadanne hee waxay gaaladu sheegtay bal inoo soo sheega soo qorqora khubaradii meeday saanka ma khubaradii meeday baa la leeyahay ilaaha rumaysnayd ee caliimka iyo khabiirka iyo xakiimka iyo wax walba inuu yaqaano wax walba u naxariisto naxariis waxaasoo sifaada ilaahaad ku rumaysnayd ee aad la hortaagnayd sidaa u sheegaysay ayuunbaad albaabka markaad ka baxda haddana war kale sheegaysaa yani dadku hadday faatixada fahmaan muranba ma dhaceen muslimku hadduu faatixada fahmo muuqallooc sameen saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy war marka ay hor taagantihiin waxay weydiisataan ihdina asiraata almustaqiim ilaahu jidka toosan nagu hanuuni jidka toosani waa kee ma jid cusubba bini aadamku waxa jadiidka ah uu ka shakiyaa waa majhuul waddada se la budliye weligeed ba la mari jiray maad ka shakidaa wadda cusub haddii lagu yidhaha halkan mar magaalo heblaayaad ku socotaa xaggaan maraa markaasaan ku idhi taa waddadaa qaad
waddadaad maraysa haddaad raad ba arki weydo waxaad soconaysaa wartani armay meel daran kaa tuurtaa cidba ma marinayo ninkan kuu tilmaamay shaka ku gelaya laakiin hadduu waddada kuu tilmaamay tahay mid dad iyo xoolo iyo gawaadho iyo wax waliba martoo la budliyo waxaad soconaysaa wartan dad oo dhamma waa ka maray tani kollayba waxay ku geynaysaa meel lagu nabdoon yihi ilaahay wuxuu ina leeyahay jidka aan idin tilmaamaya maaha jid aan hore loo marin idinma lihi idinku tijaabiya haddaa muslimkan maanta jooga tihiin idinku tijaabadan qaada laydinma laha aadanuhu hore u soo tijaabiyey oo waa maxay jidkani waa siraata aladiina ancamta calayhim waa jidkii ay mareen kuwii ilaahaye waad u nimcaysay qur-aanku kuwo badan oo loo nimceeyey buu ka warramaya oo yaa ugu horeeya kuwa ilaahay fii suurati النisaa qoladuu ku warramaya maxaa la tilmaamay ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadaaءi والصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa baa ilaahay ku tilmaamay kuwa loo nimceeyey waa nebiyadii alla soo diray aadanaha dunida ku nool dad baa ilaahay ka doortay inay madax ka noqdaan waa rusushiya nebiyada gadhwadeenka bashariyadu laga soo bilaaba aadan ilaa iyo maalintay dhammaanayso gadhwadeen waxa u ahaa maxay kuwii ilaahay doortay waxyiga u sheegay kuwii ilaahay gacanta qabtay ee yidhi jidkan mara ma kuwa hoggaan ka saxsan baa la helaya waa kuma hoggaamiyaha ka toosnaanaya ma jiro waa kuma cidda ka aqoon badan leh waxaa leeyahay waa professor hebel oo Harvard University looga ku soo bartay war noloshu noo qura ma aha ilaahay looga iyo dadkaba abuuray ayaa gacanta kuwan qabtay markaasaa lagu yidhi adigana war dabagal ilaahay baa intuu gacanta qabtay ku yidhi dabagal iyaga saa daraaddeed baa waxaa lagu yidhi waxaad tidhahdaa ilaah waxaadna marisaa siraata aladiina ancamta calayhim oo ah min annabiyiin iyo washuhadaa shuhadaaduna waa haliyeyadii dunida soo maray waa dadkii ogolaaday mabda'a kan naf iyo nafis bay inagu bixiyaan haddaad geesi maqasho dunidan iyo waa haliye iyo waxbuu taray waa ninkii mabda'a kan u dhintay uun ninkii dariiq gaaleed u dhintay haliyey maaha iyo ninkii reer u dhintay toona haliyey waxa ah ninkii rabbigii difaacay soo kaa maaha haliyey waa kaa idan ashuhadaa waa kuwii rabbigood difaacaya jidka u geeriyooday min annabiyiina waasidiiqiin sidiiquna waa maxay waa martabada wixii rabbi sheegay oo dhammaanteed sidiisa u qaatoo rumeeyey dad yar baa gaadha sidiiqnimada iyo washuhadaa iyo wasaalixiin cumuumu saalixiin dadka wanaagsan oo dhan jidkay mareen weeyaan baa ilaahay leeyahy jid cusub maaha baa ilaahay leeyahy jidkani waa jid la budliyey waa jid hore loogu badhaadhay iminka idinka laydinku tijaabin maayee dadkii idinka idinka horreeyey ayaa ku soo badhaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo inooga digay markaa laba jid oo aan iyaga lagu lugo-o idan nolosha dhammaanteed waa saddex waddo qura dariiq afraad ma jiro nolosha gebigeedba saddex wadduunbaa mid la qaadaa waddo dadka raashidiinta la yidhaahda qaada alraashid raashidku waxa weeyaan waa qof mabda'iyanna u saxan camaliyanna u saxan أولئك هم الراشدون كوا إلهي تلماميو خلفاء الراشدين وين أنا دهنا خلفاء الراشدين معناه واحد ودد مبدأ أهانا صحنا وضع أهانا صحنا لبدا طريقة كلا نقول معنا والله بدا طريقة كلا إلهي شيء غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوا دو عروضي إلهي وجد كوا دهنا مرين كوا الله عروضي وددك حق أنت يقرتان كوعدة مصالح اسموتيين يدنا كلا يوح كلا ربان دراد يدور للعمري حق أبو قرنا يساسا صحبوا لي لكن ما حي صح وحق واساس بولي لكن أنا مرة سام بدن يري وشرتها ما سام بان وأكيد رمي جاي اللي يري إن أنتوا حالا بدن قبل بواح ليد حالا بدن بيكبحيه dabeetana inankiisii uu xoolaha badan uga bixiyay inanta guursaday baa dhintay dabeetana wuxuu yiri war gabadha wixii xoolaha aad ka dhiibteen reerkoodii baa ku noqonaysaa aniga wax la mehriya buu yiri wadaad baa yiri odayow kitaab alle inantii uu qabay inankaagu min sulbaka ma yarkuu qaban maayo war kitaab alle dantay ma oga buu yiri waa jaahiliyadeenii baadiyaha kitaab alle
waa laga yaabaa inay ku qoslaysaan kuwa kan oo inagu miyaanan lahayn kitaaba la danteen ma ogateena inoo qoosha ilaan intaa wadaad baa idin le war hooye ilaahay kitaabkiisa raac war ka daaya kan maalmo dhaweydaan maqnaa waxaan maqlayay waxa muran waddankaba uu ka dilaacay ribada hala keeniyo hala qaatiyo bangiga hala qaato waa kitaaba la danteen ma oga kaa waa odaygaa dhaqankiisii idinku waa ku qosasheen laakiin markaa idinku samaynaysaan iskuma qosashaan innagu markaynu samaynayna iskuma qosallo laakiin odaygaa reer baadiye ahi markii uu sameeyey jahligu haystay waa ku qosallay idan ariiqa kan waxa madax ka ah bay culammadu yidhahdeen yahuud nimanka la yidhaahdo maqduubi calayhimka waxa madax u ah yahuud waayo yahuud ilaahay wuxuu yidhi yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaa'ahum baa ilahay yidhi nebi maxamed waxay u garanayeen ma nin baa ilmihiisu ka lumaa siday carruurtooda u garanayeen bay u garanayeen baa ilahay yidhi waanay dhinac mareen idan iyaga jahli ma haynine adilada iyo calaamadihii nebinimada iyo waxoo dhammi markay u caddaadeen ayay haddana dhinac mareen saa daraaddeed baa had iyo goor mufasiriintu hayri lmaqduubi markay joogaan dee qur-aanku qoladaasuu maqduubka u sheegay laakiin waa sifada dadnimadooda ma aha waa sifada tan ah xaqa intaad garato adigoo garanaya inaad dafirtid oo diidid oo tuurtid adoo garanaya waa sifada uu leeyahay cid kasta oo luntay ilaahay muxuu ku tilmaamayaa kaladi insalakha ii sheega aayadda qur-aanka ahay faatbacahu shayطaan kaladiina aataynaahum aayaat ilaahay wuxuu sheegay kun la siiyey aayaadka ilaahay wax laga siiyey oo fansalakh ka siibmay faatbacahu shayطaan baa ilahay yidhi isagaa macallina marka kan ilaa xaqii buu garanaya ogaan buu rabaa inuu dhinac maree isagaa macallinoo shaydaanka daba socda ilaahay kaa muxuu ku sheegay inuu ka mid yahay maxay gaawiintu ku jiraa baa la yidhi gaawigu bay yidhaahdaan markaa waa ka xaqa gartay ee dhinac maray qolada saddexaad waa waladaaliinku waa kuwii lumay aslanba isagu wuu ismootiyey waddadan uu derderay ayaa waddo baasa laakiin wuxuu moodaya inay xaq tahay kuwana waxa u badan baa la yidhaahdaa calanka u siday maxay nasaaradii kuwii masiixinimada sheegtay waayo maxay calanka ugu sideen diimihii xagga rabbi ka yimi oo dhamme maxay sheegayeen waxay sheegayeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu keli yahay socankaa ma aha diimaha dhulka laga amaamudo qaar ka mida baa sheegayey ilaahay intuu soo degay inuu ku soo degay sanamkan ama kan ama waxa kan ilaahay baa barakeeyo ku dhex jira ama ka dhex hadlaya ama xuluulka iyo waxaa iyagu maxay yidhaahdeen saddexda ilaahay isku ilaaha ama ilaahay baa intuu soo degay uur islaameed galay oo ka soo baxay makhluuqaadka dhex galay aslu diini samaawi bay ka lumeen diinta samaawigii waxay tilmaamaysaa maxay ilaahay subxaana wa tacaala inaanu yahay makhluuqaadkiisu inay kala nooc yihiin ilaahay fii sifaatihi inaanu marnaba makhluuqaadkiisa la nooc ahayn dhex gelinna saad awgeed diimaha dhulkaa nooca kana iyaga markii fii suurati tawba ilaahay sheegay muxuu ku sheegay yudaahiuuna qowla aladiina kafaruu min qablu baa ilaahay yidhi diimaan horey u yaalan diimahan sheegaya hebel baa ilaaha iyo hebel diimo horeo baatiloo dhulka yaallay bay ahaayeen dabeetana kuwii unbaa lagu qasay diintii ilaahay nebi ciise uu soo dhiibay oo la dhex eriyey waxay lahaan jireen qaybo muwaxidiin oo arisiyiin la yidhaahdo taariikhda aadanuhu ay aada uga waranto oo tiro badan haddaba qolada tani aslan bay diin bay raadiyeen oo meel cidlaa bay ordeen aslu diin samaawi bay ka lumeen oo ah tawxiidka waa daaliin qof kasta oo ariiqa aan marka horeba helinna waa kanuu la mid yahay daal baa la yidhaha idan dadku waa saddex qaybood waa raashid iyo gaawi iyo daal ilaahay nebi maxamed labadanba wuu ka anfiyey maa dalla saaxibukum wamaa gawaa baa ilahay yidhi maa dal wamaa gawaa nebi maxamed mana lumin isagoo xaqa arkayana kama weecan baa ilaahay yidhi labadaa sifo midna isagu ma laha ee sifaduu leeyahy waa maxay waa sifatu rushdiga iyo ariiqa saxa inuu maro axad alculamaa sufyaan baa waxaa laga wariyaa inuu odhan jiray culamadayada kuwa lumaana waxay leeyihiin sifadii yahuudeed wax ka mid ay raaceen cubaadayada kuwa lumaana waxay mareen sifadii maxay wala daaliinka cid ka mid ay mareen haddaba aynu soo noqonnay waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala markaynu hor taaganay
hal mas'alo ilaahay idin weydiista oo ina baray inaynu weydiisano mas'aladaasi waxa weeyaan maxay ihdina as-siraat al-mustaqiim aynu maalin walba 17 jeer ilaahay weydiisana siraadka aynu raadinayna waxa la yidhaha astaantaasuu leeyahay jid waa kay nebiyada iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo dadkii wanaagsanaa mareen laba jidna laba kooxood oo lumay baa kala mara jid waxa mara maxay daaliinta jidna waxa mara qoladii la lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun qowlkooda iyo ficilkooda iskhilaafsan waxa ay leeyihiinna waa war waxay qabanayaanna maxay waa shaqo kale faatixada haddaynu isnahno hal la sharxo sharax waafiya waxaan filayaa asaabiic baynu wadi karnaa laakiin waxaan u dan lahaa bal in kooban oo qof kastoo muslim fahmi karo oo maxay ah qaybta koowaad inay tahay ilaahay ammaantii qaybta kalena inay tahay ballan aad ilaahay la gelayso keligii inaad caabudayso keligiina baryayso qaybta saddexaadna inay tahay ilaahay su-aal aad weydiisanayso jidka saxa inuu kugu hanuuniyo waa saddexdaa qaybood maalin walba 17 jeer baad weydiisataa ilaahay subxaana wa tacaala albaabkaa markaynu ka baxno saddexdaa ayaynan khilaafin saddexdaa ayaynan khilaafin maxay markaynu albaabkaa ka baxno markaynu dabadda u baxno waa inaynu ilaahay dikrigiisa haynaa markaynu dabadda u baxno shaqadeennu iyo acmaasheennu mid adduuniya mid aakhiraba waa inay noqotaa waxaynu ilaahay ugu dhowaanayno markaynu dabadda u baxno jidkaynu ilaahay weydiisanaynay waa inaynan dhinac marin waa inaynan ilaahay jidkiisa ka dooranin jidka yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaari maanta adduunkan iyagaa u xoog badan dunida maadiga ee lagu nool yahay aadanaha dunida joogana iyagaa waxu yeedhiya dadka dunida joogaana beerku intuu dhulka saaray ayuu wuxuu yidhi iyagaa ka baqaya ilaahay ka baqi maayo markaad tidhahdo waar ilaahay waa kafuuru raxiim buu ku leeyahay kuwanina wayna laynayaan saca maaha waxay ahayd ilaahay wuxuu ina leeyahay laa yucadibu cadaabahu walaa yucadibu cadaabahu axad sida alle wuxuu cadaabo cid wuxuu cadaabtaa ma jirta baa ilaahay kuusii sheegay in allaha gafuuru raxiim shadiid alciqaab wey towxiidka iyana iska lumin faatixada haddaynu fahamno ummad yahay oo aynu manhaj ka dhiganno wadaadna inala murmi maayo cid kalena la murmi mayno waa intii aynu ku tukanaynay inaynu ku dhaqanno oo rabbigeen ku raacnaa baa laynaga laayay ramadaan waa soonna waynu isku daynay inaynu cibaadaysanno in badan baynu ilaahay baryaynay haatanna gabagabay maraysaa ramadaan markay baxdo yaynan jidkii ku noqonin ee aan hayno kaa aynu ilaahay kula ballannay sala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin